kulan wacan daawadayaal halkan waa xanta wararka war degdeg oo ina soo gaar ayaa sheegaya in ciidamada dawladdu ay la wareegeen Sheekow Gaab Marey Suuley iyo Mazagawaay oo dhaca deegaanada gobolkaasi deegaanada maamulkaasi Galmudug ee gobolkaasi Galgaduud waxa lagu sii dhawaanayaa qabashada Ceeldheer iyo Ceelbuur iyo deegaanada dhaca gobolkaasi Galgaduud waxaan soo gudbin doonaa warbixin aanu barnaamijkan ku falanqeynayno kuna faaqidi doonaa hadduu Halloween raalli ka noqdo daawadayaasha saaxiibada sida tooska ah halkan inoogu xiranow sidoo kale waxyaabaha daawan doon barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono daawadayaasha sida tooska ah halkan inoogu xiranow waxaa ka mid noqon doona rabshadaha gobolkaasi Laascaanood ee Sool oo sii kordhaya rabshado iyo dibadbaxyo ka socda maanta mar kale xilli ay toogasho dad kale oo rayid ah ay jiraan waxaan soo gudbin doonaa Somaliland tallaabo ay qaaday warbixin ay ku falanqeyn doonaa iyo soo dhawaada oo ku biiro daawadayaasha nagu xiran si aad qayb uga noqotaan wararka falanqeynta dhacdooyinka aanu halka ku baahino kuna falanqeyno markale kulan wacan oo wanaagsan ayaanu hawadeedii kale nahay daawadayaal saaxiibayaal soo dhawaada oo ku biiro daawadayaasha nagu xiran si aad qayb uga noqotaan wararka falanqeynta iyo dhacdooyinka aynu ku bilowno ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay la wareegeen deegaano cusub warkaasi oo ah war degdeg oo iminkana soo gaaray deegaanadaas cusub ayaa ka tirsan gobolkaasi Galgaduud ciidamada huwanta ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka is abaabulay ayaa waxay gacanta ku dhigeen deegaano markaasi Mazagawaay iyo deegaano kale oo dhaca isla gobolkaasi sida xuquuq ay tibaaxayaan ciidamada huwanta ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa deegaanka ayaa gacanta ku dhigay deegaanada kale ah Mazagawaay Marey Suuley iyo Awsheekh Gaab ee dhammaan ka tirsan gobolkaasi Galgaduud saraakiil uu ka mid yahay Cumar Macalin Nuur General Tredisho iyo General Gacma Duule ayaa gacanta ku haya hadda deegaanku sida wararku ay tibaaxayaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku ayaa dhawaan guud ahaan la wareegay gobolkaasi Shabeellaha Dhexe si kasta oo ay xaaladda noqoto daawadayaasha sida tooska ay noogu xiranow xubnaha saraakiishaasi ayaa hormuud ka ahaa qabashada gobolkaasi Shabeellaha Dhexe intiisa badan ama gebi ahaantiisaba iyagoo in badan furimaha markaasi dagaalku ku jiray General Tredisho General Gacma Duule iyo saraakiil uu ka mid yahay Cumar Macalin Nuur ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanku ayaa waxay u ruqansanayaan qabashada gobolkaasi Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ciidamada dawladda ee xoreeyay Shabeellada Dhexe ayaa qorshoodu yahay inay sii wadaan dagaalka ilaa al-shabaab laga saarayo Mudug iyo Hirshabeelle iyo deegaanada gobolkaasi Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dhaqdhaqaaqadan ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu kol sii horeysay sheegay in aan halkan lagu joojin oo la sii dhaqaaqado si loo dhaqaajiyo dirirta iyo dagaalka ka dhanka ururkaasi al-shabaab xubnaha saraakiisha ah ayaa ku baahiyay barahooda bulshada in ay markaasi qabteen oo ay gacanta ku dhigeen gobolkaasi Galgaduud gaar ahaan halka lagu magacaabo Mazagawaay oo waa degmadaasi mid markaasi si weyn loo dhooraya gabashadeeda ilaa 25 kilomitir ayay u jirtaa ayaa la yiri degmadaasi Ceeldheer ee ka tirsan gobolkaasi Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya si kasta oo ay xaaladda noqoto waxaa la sheegayaa in socdaalladaasi ay dhaqaajin doonaan isu socdaallada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo Galgaduudba iyadoo ciidamada dawladda ay iskaashanaya qaybada kala geysan iyo dadka deegaanku ay dhaqaajinayaan socdaal dheer oo ilaa iyo Galgaduud iyo Hiiraan ka gadaal markii dhaqdhaqaaqay ka bilowdeen Shabeellada Dhexe iyo markaasi Hiiraan si kasta oo xaaladda noqoto waxaa la sheegayaa in loo jeestay qabashada dhinaca iyo Galgaduud deegaanada ururkaasi al-shabaab ay dhowr iyo 10 sano ay ka haystaan 2011 ilaa 2012 ayaa la sheegay in degmadaasi Ceeldheer ay gacanta ku dhigeen kooxdaasi al-shabaab si kasta oo xaaladda noqoto waxaa la sheegayaa in dhaqdhaqaaqyo ururkaasi ka dhana uu markaasi ka curtay qaybo badan oo ka tirsan gobolkaasi Galgaduud waxaa la sheegayaa in maamulka Axmed Qorqoor oo dhawaan lagu eedeynayay hakinta iyo dhaqaaq la'aanta gobolkaasi Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen in iminka markaasi dhaqdhaqaaqadaasi la sii tibaaxi doono ka gadaal markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu cod dheer ku jeediyay in la sii dhaqaaqado dirirta ka dhana ururkaasi al-shabaab ee gobolada dalka rabshado ayaa ka socda wili Laascaanood rabshadahaasi ayaa kordhay Somaliland talaabo kale ayaa u qaaday in markaasi la xakameeyo xaaladda gobolkaasi wararka ka imaanaya
magaalada Laascaanood ayaa tibaaxaya in weli ay kacsan tahay xaaladda magaaladaasi oo xarun u ah Sool gobolkaasi waxaana mar kale saaka dib uga bilowday rabshado ay dhigayaan shacabka Laascaanood. dibadbaxayaasha ayaa ku qeylinaya erayo ay markaasi ka dhan ah ciidamada Somaliland ee ku sugan halkaasi waxayna dalbanayaan inay isaga baxaan magaalada. sidoo kale waxay rabshaduhu ka sii dareen markii ciidamadu ay rasaas u adeegsadeen dibadbaxayaasha taasi oo dhalisay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dhinaca kale Somaliland ayaa maanta qaaday tallaabo kale waxayna gebi ahaanba jartay qadka internetka ee magaaladaasi waxayna isku daysay ayaa la yidhi inay xakamayso xaaladda. Laascaanood waxay ku jirtaa xaalad adag waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqa guud ahaan magaalada sida ganacsiga, waxbarashada iyo isu socodka dadweynaha. rabshadahan ayaa galay maalintii toddobaad iyadoo ay ka dhasheen dil isniintii magaaladaasi loogu geystay Cabdilfataax Cabdulaahi Cabdi Hadraawi waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada deegaanka ee siyaasadda ka muuqday xubinna ka ahaa xisbiga mucaaridka ee wadani ee Somaliland. madaxda ugu sareysa dalka, madaxweynayaashii hore, siyaasiyiin, qaar ka mid ah dalalka beesha caalamka, xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku baaqayay in la joojiyo dilalka ka socday gobolkaasi Sool iyagoo ka codsaday Somaliland inay ilaaliso dareenka reer Laascaanood. xaaladdu ayaa haatan u muuqata mid faraha ka sii bixaysa maadaama aan xal loo helin rabshadaha socda waxayna weli shacabku sii wadaan dibadbaxa halka ciidamaduna ay adeegsanayaan awoodooda taasi oo ay rasaas nool hoos ugu dhigayaan taasi oo dhalisay waxyeelada 21 qof oo geeri ah iyo dad 100 qof kor u dhaafaya markaasi dhaawacooda taasi oo kordhisay khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah. si kasta oo xaaladda noqoto daawadayaasha sida tooska ay noogu xidhan dhow waxaa la sheegayaa in xaaladuhu ay markaasi sii kordhayeen oo ay sii cuslaadeen xilli ay markaasi taagan tahay dhaqdhaqaaqyo xooggan oo tallaabooyinkaasi markaasi la xiriira. si kasta oo xaaladda noqoto dhaqdhaqaaqyada ka dhana gobolkaasi Sool ayaa sii xoogeysanaya in dhawaalaba taasi oo siyaabo kala duwan ay uga doodeen markaasina uga hadleen xubno kala gedisan iyadoo cadaadis xooggan lagu saarayay dowladda federaalka ee Soomaaliya. si kasta oo xaaladda noqoto daawadayaasha sida tooska ah halkan wararka falanqeynta iyo dhacdooyinka inooga qaato. dooda gobolkaasi ayaa waxay markaasi soo jiitamaysay muddo sanado ah iyada oo ay markaasi gobolkaasi uu ka mid yahay mid ka mid ah gobolada xasaradaha ugu badan uu ka dhex jiro. si kasta oo xaaladda noqoto waxaa kol sii horeysay isku qabtay Somaliland iyo Puntland iyadoo gobolkaasi uu ahaa mid dadkiisu ay markaasi ku fashilmeen inay isku raacaan aadidda hal dhinac ama Somaliland ama Puntland iyadoo markaasi Somaliland ay gacanta ku dhigtay sanadkii 2007 gobolkaasi xilli ay u fududeeyeen qabashadiisa dad markaasi gobolkaasi u dhashay oo saraakiil ciidamo haystay u badnaa ama ahaa. si kasta oo xaaladda noqoto si weyn ayaa barta bulshada loogu doodayaa qabashada deegaanada gobolkaasi mudug amaba markaasi galmudug gaar ahaan galgaduud sida Sheeqowgaab, Maray Suuley iyo Masagawaay oo ka tirsan gobolkaasi galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. si kasta oo xaaladda noqoto waxaa la sheegayaa ama markaasi sida lagu baahinayo warka ama warbaahinta dowladda kuwa qalabka sida iyo xubnaha markaasi ka shaqeeya saraakiil ciidanba sida ay ku xaqiijinayaan waxaa la sheegayaa in gacanta lagu dhigay qabashada galmudug taasi oo deegaanada iminka gacanta lagu dhigay hore loo oran jiray Mareeg State. si kasta oo xaaladda noqoto intii aan magacaasi galmudug uu markaasi lagu dhawaaqin ama uusan soo bixin. si kasta oo xaaladda noqoto waxaa la sheegayaa in dhaqdhaqaaqa ka dhanka ururkaasi Al-Shabaab uu markaasi ku sii fidayo deegaano ka tirsan gobolkaasi Galgaduud. waxaa la sheegayaa qabashada Galgaduud oo xudun u ahayd ururkaasi Al-Shabaab iyo saraakiishooda sarsare inay markaasi sahli karto in loo dhaqaaqo dhinaca iyo jubbooyinka oo la sheegayo in saraakiishu ku sarsareysa ururkaasi ay joogaan iyo sidoo kale deegaanada Pay iyo Pakool siday tibaaxayaan saraakiisha iyagu markaasi doodahaasi sameynaya iyo dadku iyagu markaasi falanqeynta iyo faaqidaada ka bixinaya. mar haddii la qabto gobolkaasi Galgaduud waxaa la leeyahay qorshuhu wuxuu noqon doonaa aadida jubbooyinka iyo Pay iyo Pakool oo deegaano markaasi muddo ay ka xayiran yihiin
iyo jubbooyinka oo gobol dhan ururkaasi al-shabaab ay haystaan taasi oo la sheegay in saraakiishooda sarsare ay joogaan